shirkan oo socon doona 3 maalin waxaa looga hadli doonaa sidii dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya loo gaarsiin lahaa in qof walba oo Soomaali ah uu aragti hufan ka dhiibto waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya mas'uuliyiin ka socday dawlad goboleedyada dalka aqoon-yahano dhinaca sharciga iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dastuurka ayaa ka qayb galayo Abuukar Cumar Dhagey gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka oo shirkan ka qayb galay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda uu leeyahay dastuurka arrintan muhiim waaye fulinteeda intaan laga hadlin arrin aad u farsamo ah waaye arrimaha dastuurkan sida uu sheegayo walaalkay run waaye lama badiyo qawaacid waaye laakiin 4 qaybood oo uu ka kooban yahay marna lagama tagi karo qayb waa mabaadii guud oo aan heshiis ku nahay oo aan ku wada shaqaynayno oo ugu horeyso mabaadii uu ka bilowdaa qaybta labaad marka fiirisid wuxuu ka hadlaa xuquuqaha qaybta saddexaad marka fiirisid wuxuu ka hadlayaa mabaadiidaas iyo xuquuqdaas haykalkii fulin lahaa oo dawladda ahaa sida uu ku dhalanayo awoodihiisa iyo sida uu wax ku fulinayo ayuu ka hadlayaa waa state organizations si dawladdu abaabulanta uu ka hadlaa Maxamed Abuukar Subayr agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka ayaa sheegay in shirkan uu daba joogo shirar kale oo hore loo qabtay loogana hadlayay sidii dastuurka dalka looga saari lahaa ku milgaarka qof walba oo Soomaali ahna uu aragtidiisa ka dhiiban lahaa inagoo adeegsanayna aaladaha kala duwan ee loo isticmaali karo dadka in lagu gaaro meel kasta ay joogaan kulankani wuxuu daba joogaa kulankii bishii August aan ku yeelanay isla fadhigan intiina badan aad ka wada qayb gasheen waxaan ku faraxsanahay ka qaybgalayaashii xogogaal ku ahaa ee arrimahan la socday inay goobjoog yihiin gobolka Banaadir runtii aad u amaanayna kii hor way ka maqnaayeen laakiin waxaan rajaynaynaa inay la qabsan doonaan wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaalayso sidii dastuurka Soomaaliya loo gaarsiin lahaa in qof walba oo Soomaali ah uu codkiisa ka dhiibto isla markaana dastuurka looga saaro ku milgaarka dhawaan waxa Muqdisho ka dhici doona shirweyne qaran kaas oo looga hadlayo arrimaha dastuurka Xuseen Cabdi Cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka waxa uu rajo ka qabaa in shirkan ay ka soo bixi doonaan qodobo muhiim ah kuwaas oo sahli kara sidii afti dadweyne loogu qaadi lahaa dastuurka hadda qabyada ah sidaan la socono wasaaradda muddadii dheereed oo la soo maray wadatashi ballaaran oo qaybaha bulshada ah ayay samaysay waxaan isleenahay ilaa xad intii aad gaari kartiin oo dadka gobolada ha noqoto dalka caasimadda ha noqoto bulshada qaybaheedii kala duwanaa ha noqoto tashi ballaaran ayaan samaynay Aweys Maxamuud Jilcow Home Cable TV Muqdisho